ciidamada Itoobiya ka howlgalka kala duwan ay ka wadeen dalkaasi Soomaaliya waxa uu ahaa mid ay kula dagaalamayaan argixisada al-shabaab iyo waliba kooxaha argixisada howlgalkaasina waxa uu ahaa mid mahad weyn loogu soo jeediyay ciidamada dalka Itoobiya xilligii howlgalka kala duwan ay ka wadeen dalkaasi Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxa jirtay in ciidanka dalka Itoobiya ay guulo waaweyn ay ka soo hooyeen isla markaasina howlgalka lagu dagaalamayay argixisada al-shabaab ee ka dhaqaaqay dalkaasi Soomaaliya howlgaladii kala duwan ee Muqdisho iyo waliba Baydhabo ay kaga howlgaleen ciidanka Itoobiya taasina waxay ahayd guul waaweyn ay soo hooyeen waxaana xilligaasi u marxaati furay madaxweynaha xilligaasi jiray Cabdullaahi Yuusuf oo sheegay in ay ciidamada Itoobiya ay howlgal wanaagsan ay ka qabteen dalka Soomaaliya isla markaasina marka ay howlgalkooda dhameeyaan si nabadgelyo ay dalkoodii ugu noqonayaan markii laga kaaftoomo Itoobiyaanku si wanaagsan ayay amniga u sugeen howlgal wanaagsan ayay kala qabteen ciidanka dalka Soomaaliya iyo kaashanaya argixisada al-shabaab ayay wiiqeen taasina si weyn ayaa loogu mahad celinaya ciidanka Itoobiya howlgalka ay wadeen haddaba ciidamada argixisada TPLF ee ka dhaqaaqay dalka Itoobiya ayaa waqti xadirkan xilligaasi iyadoo howlahaasi kala duwan ay jirayeen haddana waxay bilaabeen in ay falal kala duwan oo argixisannimo ay ku dhaqaaqaan imika argixisada TPLF warbixinta xogta qarsoon ee laga helay ayaa tilmaamisay in ay qorshooyin kala duwan ay ku maleegayeen sidii dhinaca dalka Soomaaliya qalaaso kala duwan ay u bilaabaan oo ay howlgallo kala duwan ay ka fuliyaan dalka gaar ahaan dhinaca deegaanka Soomaalida qorshooyinkaasina ayaa ahaa qorshooyinka ka fashilmay argixisada TPLF ee ku doonisay inay dalka Itoobiya ay ku burburiso iyadoo ay saasi tahay ayaa wax bilowday argixisada TPLF inay xiriir la yeelato kooxaha argixisada ee al-shabaab iyo sidoo kale argixisada shane ee dadka xasuuqaya ee dhibaatooyin kala duwan ku wada shacabka dhibaatooyin kala duwan geysanaya qorshahaasina ayaa ahaa mid ay ku doonayaan in dalka ku burburiyaan ujeedadoodana ay ku ballaarsadaan taasina waxaa lagu helay qorshaha qarsoon ee ay kooxda argixisada TPLF ay maleegisay ee diyaarsatay ayaana ahaa mid ay ku fashilmeen arrimahaasi kala duwan qorshooyinkaasi lagu doonayay ayaa ahaa qorshooyin lagu doonayay in dalka lagu burburiyo balse qorshooyinkaasi way ku fashilmeen xitaa wadahadalkii ay la yeesheen argixisada shane ayaa ahayd mid ay si qarsooni ah in wada shaqayn lagu yeesho iyo sidii taageero loo siin lahaa argixisada shane iyo habka loo taakuleyn lahaa ayaa ku jiray xitaa qorshahaasi qarsoon ee argixisada TPLF ay diyaarsatay ay maleegisay in dhibaatooyin lagu geysto dalka iyo waliba shacabkaba si kastaba haatee warbixintaasi qorshaha qarsoon ayaa ahaa mid siro kala duwan ay kaga soo baxeen qorshahaasi qarsoon ee ka soo fashilmay argixisada TPLF ayaa ahaa mid ay qorshooyin kala duwan ay ku maleegayeen si kastaba haatee argixisada TPLF ayaa ahaa qorshaha ay maleegisay wuxuu ahaa mid ay ku doonayso inay siyaabo kala duwan ay dalka khalkhal u geliso dhibaatooyin kala duwanna ay ka geysato iyadoo qorshaheedaasi qarsoon ee ka fashilmay ay siiyeen qorshooyin kala duwan iyo qoraallo kala duwan ay ku soo daabacday habka loo caawin lahaa argixisada habka loola shaqayn lahaa argixisada iyo waliba siyaabaha kala duwan ee dalka loo wiiqi lahaa ayaa ka mid ahaa qorshooyinka kala duwan ee warbixintaasi ku qarsoonaa